وعنا wanaagsan idilaantii madawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan xilligan idin haynana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay diyaarada drones ah oo xalay qalqal galiyay amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas oo lagu arkay dusha sare ee madaxtooyada Soomaaliya iyo ciidamada Koofi Casta loo yaqaan oo qaaday talaabo degdeg ah hadaba maxay ahaayeen diyaaradahaas waase sidee saakay jawiga Villa Soomaaliya warbixino ayaanu idinkaga haynaa madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo war culus ka soo saaray qorshaha Mareykanka uu Somaliland ku aqoonsanayo xilli uu Mr Trump u diray fariin xasaasi ah waa maxay cabsida uu qabo madaxweyne Xasan Sheekh ee la xiriirta aqoonsi ay helaan reer Somaliland wararka kale waxa kamid ah dagaal qaraar oo wali ka socdo gobolka Hiiraan kooxda shabaab oo mar kale soo laba kaclaysay iyo militariga Soomaaliya oo mar kale dhigta dhiiga u diray kooxdaasi iyo Jubbaland oo xaalkeeda uu ka sii darayo dhaqaale xumo xooggan wajahaysa qodobadaasi ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan muuqaalka like saar daawade sidoo kale si faafi wararkan oo si gaarsiin saaxiibadaada kale ee kugu jira baraha bulshada mahasanidiin aynu ku bilowno wararkan xalay Villa Soomaaliya waxa amnigeeda qalqal galiyay diyaarado drone ah oo lagu arkay dusha sare ee madaxtooyada Soomaaliya kuwaas oo sidoo kale cabsi xooggan galiyay amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo oo ciidamada Koofi Casta ee halkaas ilaalada ka ahna ay markaa qaadeen talaabooyin degdeg ah wararka iyo macluumaadada saaka laga helayo Villa Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in jawiga saaka uu yahay mid degan isla markaana amnigu uu yahay mid sidiisii hore ku soo laabtay kadib markii diyaarado drones ah ama kuwa aan duuliyaha lahayn ay xalay dul heehaabeen hawada sare ee madaxtooyada Soomaaliya halkaas oo laga maqlay markii dambe rasaas xoog leh oo ay ridayeen ciidamada amniga ee madaxtooyada Soomaaliya macluumaadada iyo xogaha la helayo ayaa waxa ay tilmaamayaan in diyaaradan oo ahayd mid drone ah ay dhowr jeer ku soo gaaf wareegtay ee agagaarka madaxtooyada Soomaaliya waxaana markaa wixii ka dambeeyay tuun xoog leh uu galay hay'adaha amniga ee gacanta ku haya madaxtooyada Soomaaliya waxaana la tilmaamay in markaasi kadib ciidamada Koofi Casta loo yaqaan ay qaadeen talaabo degdeg ah oo ah in ay rasaaseeyeen diyaaradaasi xalay jawiga madaxtooyada waxa uu ahaa mid aad iyo aad cabsi u ah waxaana laga shakiyay diyaaradaas in ay siday waxyaabaha qarxa ujeedkuna uu ahaa in ay bartilmaameedsato Villa Soomaaliya ama in ay basaasto xogta madaxtooyada Soomaaliya labadaas oo ay ahayd ayaa la leeyahay ciidamada madaxtooyada ee Koofi Casta waxa ay rideen sida la sheegay qoriga loo yaqaan dhishiikaha oo ay dhowr jeer ku bartilmaameedsadeen diyaaradaas drone ah waxaana la tilmaamay markii dambe in diyaaraddu ay halkaasi isaga tagtay ciidamada ma aysan ku guuleysan in diyaaradda ay markaasi soo ridaan laakiinse waa ay ka wareegsatay aagaasi ilaa iyo hadda ma jiraan wax macluumaadyo ah ama wax faahfaahin ah oo ay bixiyeen hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo la xiriira dhacdadaasi dhawaan waxa soo baxay digniino sheegaya in ay suurtagal tahay in kooxda shabaab ay adeegsan karaan diyaarado drone oo qaraxyo sida lagu sheegay warbixino ka soo baxay hay'adaha caalamiga ah ee degan xerada xalane ee magaalada Muqdisho si kastaba maalmo ka hor ay ahayd markii ay Puntland soo riday diyaarado qaraxyo laga soo buuxiyay oo kooxda Daesh doonaysay inay ku beegsato ciidamada maamulkaas ee haatan howlgallada culus ka wada dhulka buuraleyda ah ee gobolka Bari waxaa la sugayaa in dawladda Soomaaliya aysan arintan ka hari doonin oo ay markaas sameyn doonto baaritaano iyo in ay natiijo ka keento waxa ay ahayd diyaaradii xalay cabsida weyn gelisay amniga madaxtooyada Soomaaliya ee drone ahayd waxagaag wixii warar ku soo kordhana wararkeena kale ayaanu ku soo qaadan doonaa insha Allah markaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu markaasi ka hadlay wararka ku saabsan aqoonsiga Mareykanka uu siinayo Somaliland madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu xaqiijiyay in xubno ku dhow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay doonayaan in la aqoonsado Somaliland balse aysan walaac badan arintaasi ka qabin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi siinayay wargeyska weyn ee The Washington Post ayaa waxa uu sheegay in uu rajo ka qabo in Mareykanka ninka cusub ee loo doortay mar kale ee Trump in uu ka shaqeeyo xoojinta iyo sidoo kale iskaashiga Soomaaliya waxaana uu tilmaamay in ay jiraan walaacaas
ku saabsan suurtagalnimada in Somaliland aqoonsi ay hesho. waxaan had iyo jeer xiriir adag la lahayn Mareykanka, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, inkasta oo aanan hubin sida ay xukuumadda cusub uga falcelin doonto arrimaha gobolka. ma filayno wax isbedel taban ah. si kastaba ha ahaatee waxa uu xusay in shakhsiyaad ka tirsan xukuumadda Trump ay kor u qaadeen suurtagalnimada aqoonsiga Somaliland, arrintaas oo uu si cad uga soo horjeedo. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dib u xusay midnimada taariikhiga ah ee Soomaaliya, isagoo carabka ku adkeeyay saldhigga sharci iyo siyaasadeed ee ay ku dhisan tahay qarannimada dalka. waxaa aad u soo ifbaxayay muddooyinkii dambe, isla markaana ahaa kuwa xoogeysanayay wararka ku saabsan in Somaliland ay aqoonsi ka helayso Trump, maadaama xubno isaga aad ugu dhow ay u ololeynayaan aqoonsiga ay helayso ama ay heli karto xukuumadda Somaliland. Somaliland ayaa 30 sano ka badan waxay raadinaysaa ictiraaf ama madax bannaani, inkastoo inta badan arrintaasi ay ku guuldaraysato. laakiin xukuumadda cusub ee Cirra uu hogaaminayo ayaa suurtagal noqon kartaa in ay dhigto taariikh cusub marba haddii Mareykanka ay aqoonsi markaa ka hesho. laakiin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa arrintaasi si aad iyo aad u diidan, isla markaana uga soo horjeeda. ugu dambeyntiina gobolka Hiiraan dagaalada ayaa waxay yihiin kuwo markaasi laba qarxaya, iyadoo kooxda Al-Shabaab ay mar kale soo laba kaclaysay. dagaalo qaraar ayaa weli ka soconaya gobolka Hiiraan, iyadoo kooxduna ay ku far adeegayso deegaano markaa gobolka hadda ay ka joogto oo bariga ah. Beerayabaal sidii looga saaray kooxda waa ay quusan laadahay, waxa ayna soo qaadaysaa weeraro rogaal celin oo ay ku doonayso inay khasaare ku gaarsiiso ciidamada huwanta ah ee halkaasi jooga. laakiin militariga Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa casharro u sii dhigaya weli kooxda oo iyada daftarkeeda naflacaari ah, isla markaana doonaysa in ay isku daydo iska caabin xoog leh in ay isaga samayso ciidamada markaa halkaasi jooga. gobolka Hiiraan ayaana hadda la filayaa in uu noqdo gobol guud ahaanba laga xoreeyo ee kooxdaasi. gudaha qiyaaray wararkeeni intaas ayay ku idil yihiin. intaanu mar kale wararkooda xiga dib ugu wada kulmi doono, dhammaanteen isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.